بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha maartay dhageysan doona, waxaan rabaa inaan aan wax yar u cadeeyo, yani aan arkay ama dhib jiro aan dareemay runtii xagga biyaha waxaan isku arkay marka biyo kasta aan cabo oo yani warshad kasta ha soo nadiifisay ma kasta loo bixiyay. waxaan arkay in badan oo kamid inaan ku laabsheexiyo markaan cabo, inaan ku laabsheexiyo ayaan arkay haba sidii kala laabsheex badnaayeen oo yani laabta maanta laabsheexu haba sidii kala bato qaar baaba hal mar markaan cabay habeendan aan xanuunsanay maalin iyo aan xanuunsan runtii. marka kolley waa wax biyaha lagu daro, waa biyaha lagu sifeeyo, waxay tahay ma garanayo, wax jira ma fahmin, cilmigeedana ma lihi. marka waxaan go'aansaday inaan biyaha iska cabo. anuu Balbislaan joogaa tuulo la yiraahdo oo Gaalxayis u dhaxaysa. marka magaaladaas waxa weeye biyaheeda ayaan kariyay. maanta waxaan go'aansaday inaan biyaheeda iska cabo, ceelka biyihiisa iska cabo ama xareedaba aan cabo, laakiin aan iska kululeeyo oo karkariyo wixii ka soo hara. markaan arko wixii ka soo hara markaas aan iska hadbalaan fiiriyo. marka biyihii midabkaas ay yeeshaan wixii ka soo haray hadda laba maartay hal litir iyo bar meelahaas sheegaan lagu karkariyay ama 2 litir baan iska iraahdo. waxa weeye waa taas oo waxa madowga waxa gaduudka waxaan leeyahay cadaanka baa ka soo looqada ka soo hadhay, looqadaas ka soo hadhay. marka waxaan ku talinayaa dadka badankiisu xareedo inay iska cabaan ama maartay iska cabaan biyahooda ka karsadaan. sababtuna wax kale maaha, caafimaadkeena si aan u ilaalino saas aniga la qumanaatay. waayo biyaha intaynu horta xareedana ugu fiican. sababtu waxa weeyaan dadkeenu intay xareedan ku noolaayeen waqtiyadii hore oo 30 sano iyo wixii ka horeeyay oo xareeda iyo biyaha caadiga oo reer miyigu ay xareeda kaliya ku noolaayeen intooda badani. caafimaadka dadka lama soo koobi karin, wax dhibaato ah kansar iyo balaayo iyo baas lama sheegi jirin. dhif iyo naadir buu ahaa oo dibadda meelaha qaarkood laga sheegay. dhif iyo naadir buu ahaa qof kansar ku dhacay. waa waliga waayaha kana u horeysay wax la maqlo. marka waxaan isleeyahay anigu xareeda horta number 1 ah wax la isku hadlayo biyo ahaan loo cabo. caafimaadka dadka qaar waxay ku leeyahay caloosha istaagaysa. caloosha ku istaagtay maxaa caloosha u socodsiiyaa la caafimaad caloosha u baahan tahay. waxyaabaha caloosha ciisada babayga iyo hataa xididka dhexda kala maartay waxa qabaysaa maartay sabiibka iyo waxyaabaha caloosha ciida kamid yihiin. waxa kamid ah wax badan baa caloosha jilciya, caanaha geela oo inaga haysiiyay caloosha jilciya, caloosha u fiican. marka caloosha iyo jilcinteedu iyadu shida kala male, laakiin biyo la hubo caafimaad la hubo leh waxa jira xareeda. بالله توفيق وعد بيد بالمسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرف ما أنت وحويه نباتني يو شنطة بس السفر كنا طبعا فرطني دبيه جريجا كنا باجن وحويه سجاية طبعا كبيشة أجلس لولا كل يوم عشان أتكا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.